xukuumadda dalkaasi Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in la yareynayo safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay dalalka dibadda qaarkood ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle maanta ka dhawaajiyay in la xirayo safaarada dhowr ah oo ay ku leedahay Soomaaliya dalalka caalamka qaarkood. Cabdiraxmaan Bayle ayaa xusay in golaha wasiiradu ay horay isugu raaceen in la soo xidho 9 safaaradood oo ay Soomaaliya ku lahayd caalamka. safaaradaha si shaqaynaya in lagu soo koobo 31 safaaradood oo kaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isagoo hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaanu ku guuleysanay inaanu soo xidhno 9 safaaradood oo ay Soomaaliya ku lahayd dalalka caalamka qaarkood. waxaase jira kuwa aan jadwalka noogu jirin kuwaas oo ku yaala dalalka Australia, Azerbaijan, kuwaas ay ku shaqeeyaan qof warqada haysta ayuu yiri wasiirku. sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Soomaaliya ayaa sheegay in safaaradaha soo haray ay shaqayn doonaan lagu qaybsan doono habka awood qaybsiga dalka, taasna ay heshiis lagu gaadhay lana waafajin doono safaaradaha nidaamkaasi. dalalka safaaradii ay Soomaaliya ku lahayd la soo xidhay ayaa waxa kamid ah Burundi oo ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo wadankaasi Jarmalka. xidhitaanka safaaradahan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sabab uga dhigtay inaysan dawladdu bixin karin qarashaadka faraha badan ee ku baxaya adeegyada safaaradahaasi iyo waliba shaqaalaha ka shaqeeya. taniya markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalkaasi Soomaaliya waxa jiray dalal badan oo safaaradii ay Soomaaliya ku lahayd iska sii shaqaynayeen xilli aanu dalku ku jirin wax dawlad ah iyo kala dambeyn. arrintan ku saabsan yareynta safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay dalalka dunida qaarkood ayaa waxa cabasho ka keenay Soomaalida dalalkaasi ku nool, inkastoo ay dawladdu ku adkaysatay inay dhaqaale yari awgeed aysan suurtagal noqon karin inay sii shaqeeyaan safaaradahaasi. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuux Kadiye.